nin gabar uu doonayay inuu guursado ay nin ku noqotay maalinta arooskooda. Si aan ugu dabaqno muuqaalkan walaal waxaanu kaa codsanaynaa inaad like saarta muuqaalkan share gareysa si saaxiibo badan u gaaro sidoo kalena aad kusoo biirta page-kan Cabdikariim Cali Aadan mahadsanidin badan. Ninka ayaa waxa uu haasawo wadaag ama shukaansi la bilaabay gabar ay xilliga habeenkii inta badan kulmi jireen maadaama inta badan uu subaxii shaqeeyo amaba shaqo tago. Ninka ayaa waxa ay gabadha ninka la noqon doonto isku afgarteen in ay isguursadaan kuna heshiiyeen sidaasi. Ninka gabadha iska dhigayay ayaana waxa uu doonayay in uu dhaqaale ka helo maadaama uu shiid yahay ninkan isagoo xilliyada ay kulmayaan makeup ama waxyaabaha dumarku ay isku qurxiyaan soo marsan jiray. Sidoo kale ninka gabadha iska dhigayay ayaa waxa uu xiran jiray xilliga ay ninkan kala kulmayaan dhar dumar si ninkan uusan shaki u galin kana fogaan jiray. Ninka gabadha iska dhigayay ayaa ninka guurdoonka ahaa waxa uu lacag badan uga cunay amaba uga qaadan jiray ninkan in ay isguursan doonaan oo uu noqon doono xaaskiisa. Ninka guurdoonka ahaa ayaana si uu ninka uu gabadha u haystay u soo jiito lacag fiican sii jiray muddo bila ahna lacagta uu sida maalinlaha u shaqayn jiray u sii jiray ninkan gabadha iska dhigayay. Ninka gabadha iska dhigayay ayaana ninkan guurdoonka ahaa waxa uu aad ugu khiyaamay jiray make-up-ka iyo sidoo kale xirashada waxyaabaha uu dumarku ku matalayo markaasi amaba ay dumarku xirtaan. Isagoo sidoo kale soo qaadan jiray boorsada dumarka isna soo qurxin jiray isagoo make-up isticmaalaya. Xilliga ay ku heshiiyeen in ay isguursadaan gurigana ay ku kulmeen ninka iyo ninka kale ee gabadha iska dhigayay ayuu ninku soo dhaweeyay gabadha uu doonayay in uu nolosha la qaybsado balse ninka ah. Markii ay guriga gudaha u galeen ayayna wax waliba isbedeleen iyadoo uu ninku aad u carooday dagaalna la galay ninka khiyaameeyay ee dumarka iska dhigayay taasi oo ay markii dambe ku kala tageen dagaal. Ninka guurdoonka ahaa ayaana waxa uu aad uga carooday in gabadha uu mar waliba lacagta siin jiray doonayayna in uu guursado ay nin ku noqoto maadaama ninkan uu in muddo gabar iska dhigayay sidaasina uu dumar ku matalayay balse uu aad uga carooday ninkan guurdoonka ahaa khiyaamada ama dabinka ninkan uu dhigay lacagtiisana uu ku dhacay.